Bismillaah, niyad-jabku si qarsoodi ah ayay ugu soo qulqulaan waxyaabahan. Waxaad qarsato dharka, make-up-ka, timahaagaan fiicnayn. Niyad-jabku waa mid geesinimo leh oo xitaa ku gabanaya qosolka gadaashiisa, wuxuuna kuu sheegayaa nolosha inaanan qiimo ku fadhinin. Haddaad dhagaysato niyad-jabka sheekooyinka ah, waxay kugu sababi doontaa inaad gaarto go'aano xun. Waxay kaloo kugu sababi doontaa inaad ka fikirto in noloshu aysan u qalmin inaad noolaato. Waana inaad si qarsoodi ah ugu dambaysaa wejiga dhoola caddaynta iyo subax wanaagsan inaad tiraahdo saatahana raaciso, waana kugu farxi doonaa sayidka. Waxaad isweydiin doontaa inaad weligaa ka bixi doonto waxaad aad ku jirto ee xaaladaada dareensiiyey. Waxaa jira dad daqiiqado tijaabiyey nafta bini'aadanka si rabshad iyo wareer leh. Haddii runta la sheego, dhammaanteena waxaan soo marnay daqiiqado aan doonaynay inaan gacmaha ka ruxno oo aan iska dhaqaaqno. Ha ka dhigin niyad-jabka murugo joogto ah oo ah si aad kaga dhigan inaad soo koobto gunaanada ku saabsan nolosha dhiciska ah ee adiga ku saamayn karin. Maxaa yeelay ma gaari kartid meesha loo socdo, sababtoo ah waxaad doonaysaa kaliya inaad aragtay, kaliya inaad jeceshahay, kaliya inaad u baahan tahay darteed. Runtii had iyo jeer waxaan ku silacnaa aragtida waxaan jecelnahay. Ma jeceshahay nolosha hadda halka aad ka joogto? Waxaad tiraahdaa ha ka walwalintaas lama gaarin, waana iska hurudaa. Ma ogtahay mahmahdii lahayd marka la riyoodo waxa aad arkaysid wax sax ma ahin, laakiin riyada saxda ah waxa waaye waxa aad rabto inaad samaysid oo aad ku hurdaysid. Ma jeceshahay sida hadda aad dareemaysid? Jooji oohinta oo tallaabo un qaad. Ha leexin hadafkaaga, dib ha u dhigin jaranjarada, ha niyad-jabin. Waxaa kaliya ee aad samayn lahayd dadaal si aad ugu guulaysato dadaalka ee nafsiyan ah. Waa inaad ku sii socotaa waddada guusha. Kuma xukumi kartid nolosha halka aad ka joogto xilligan. Miyaadan ogeyn in meesha aad joogto ay mari doonaan kuwa gadaashaada ah? Waxaad ka walwalaysan wuu dhaafi doonaa. Miyaadan fahmin in maalin uun dib u jilici doonto iyo wixii qosolka lahaa ee habeenadii oo dhan ku hayay adiga? Miyaadan fahmin in uu dhowdahay sidaad mooday inay weynaatay? Waad noolaan kartaa gurigaaga la'aantiisa, waad noolaan kartaa gaarigaaga la'aantiisa, waxaad noolaan kartaa saaxiibkaaga la'aantiisa, waad noolaan kartaa nin la'aan, waad noolaan kartaa naag la'aan. Waxaan ku cabbiraa qiimaha ninka sida adag ee wax u riixo, sida aad u ogaan karto cidda aad la dagaalamayso ee ku saabsan sida ay u cadaadiyaan. Xoog, tamar guritaan, tamar dhaqdhaqaaq. Kuma fadhiisan kartid tamar waxaa lagu cabbiraa dhaqdhaqaaq. Waa sababta uu shaydaanku u doonayo inaad fadhiiso, aamus oon akhriso naftaada. Laakiin waa inaad garaacdaa maskaxdaada si ay kuu jihayso una soo xasuusato inaad hadaf iyo yool leedahay. Maskaxda subaxnimadii markii uu maleeyo inuu kugu soo dhacay waa ku qasbaysaa inaad isaga ka nixiso oo aad cadaadiso. Intaas haddaad samayso waad guulaysatay. Waxaad ka fiican tahay kuwa ku quustay tillaabooyinka horumarka leh. Waxaad kaloo ka fiican tahay kuwa burburiyey jaranjarada noloshooda. Waxaa kaloo ka heli doona adiga jaranjarada nololeed ee qurxoon dhammaan dadka. Haddaad jiifato marka waxay mari doonaan jaranjaradaadii, iidana waddo ay ku maraan noloshooda u noqon doonto. Waxaa jira dunidan hal Bill Gates, mana soo mari doono Bill Gates kale.
ee noqon kara number one billionaire intaad nooshahay hadafkaaga.